السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغيارت السودوادة waxaan rabaa inaan ka jawaabo hal su'aal oo soo noqnoqotay in badan su'aashaas oo ah maadaama 28kii bisha la soo dhaafay ee February la ansixiyay oo judge-ka uu xukumay in qaxootiga uu Trump ka hor istaagay inay dalkan soo galaan ooda laga qaaday oo uu amar ku soo rogay judge-ka amar u soo rogay judge jooga state-ka Washington ee Seattle magaaladiisa oo US District Court mas'uul ka ahaa maadaama amarkaas uu bixiyay oo ahayd in qaxootiga la fasaxo waxa dad fara badan ay su'aashan ka keeneen maalinkii hore video ayaan ka sameynay oo ku saabsanaa in qaxootiga la fasaxay oo laga bilaabo hadeer dekreetadii uu saxiixay Mr. Trump oo uu ku diidayay qaxootiga inay dalkan soo galaan waxaa ku xigtay in judge US District Court maxkamad fadhiya Seattle Washington ku taala uu ka hor imaaday arrinkaas so 28kii 28kii bishii la soo dhaafay ayuu judge-ka dubaha ku dhuftay in qaxootiga dalkan la keeni karo oo Trump warqadiisa waxba aysan ka jirin waxa judge-kaas uu sheegay in Trump uusan awood u lahayn madaxweyne ahaan oo executive order uusan ku process gareyn karin una ku baasin karin sharci noocaas ah keligii wuxuu sheegay in loo baahan yahay in Congress-ka la soo mariyo oo Congress-ka uu shirka qabto kadib marka Congress-ka ay baasiyaan ilaa sharciga qaxootiga keenistiisa waxaa la baasiyay 1980kii 1980kii ayaa Congress-ka uu baasiyay oo sharci uu ka dhigay so madaxweynaha awood kaligiis uma laha buu yiri ninkan judge-ka ah in uu dadka dhan ka joojiyo in dalkan la keeno qaxootiga oo programkii refugee resettlement programka ahaa inuu hor istaago Donald Trump kaligiis awood uma laha buu sheegay judge-kaas marka dad fara badan ayaa markaan sameynay videogaas dad fara badan ayaa daawaday su'aasha ugu fara badan oo soo noqnoqonaysana waxa waaye ma la fasaxay qaxootigii refugee resettlement programkii marka maanta dhan waxaan ka soo shaqeynayay waa mahadsantiin saaxiibayaal noo sheer galaya waa mahadsantiin waxa maanta dhan waxaan ka raadinayay sababta loo bilaabi waayay programka oo qaxootiga in la keeno loo bilaabi la yahay waxa ii soo baxday marka in shalay iyo daraadba maxkamad la isla joogay oo waxa dawladda federaalka ah iyo Trump waxa suud gareeyay qolyahan la dhaho IRAP la yiraahdaa waxa la yiraahdaa qoladan International Refugee Assistance Project la yiraahdaa waa qolyaha qaxootiga dalkan Mareykanka keena oo resettlementiga u sameeya dib u dejinta actually aan yiraahdo dib u dejinta u sameeya waxaana ay matalayeen qolyahaas Church World Services CWS kuwa la dhaho iyo waxay matalayeen Lutheran Community Services Northwest bay matalayeen oo ay maxkamadda u joogeen so waxa ii cadaatay marka oo aan soo ogaaday reasonka qaxootiga hadda loo bilaabi la yahay oo loo keeni la yahay already waxa waaye lacagtii fundiskii ayuu ka goostay Trump madaxweyne Trump iyo groupkiisa waxay ka goosteen lacagtii qaxoot la siin jiray hay'adaha caawiya qaxootiyada oo qaxootiga keena marka sidaas awgeed dadkii 10,600 ahaa oo flight sugayaasha ahaa qolyahan ayaa tigidka ka soo bixin jiray marka hore oo Mareykanka dhanba dadka keena waxaan xusuustaa CWS waqti hore dad fara badan oo ay keentay ilaa 900meedii waan xusuustaa dad ay keeni jirtay so lacagtii fundska ahaa oo lagu fund gareynayay hay'adaha qaxootiga keena dalka Mareykanka ayaa wuxuu ka hor istaagay oo ka hold gareeyay lacagihii fundska ahaa so case-kii maxkamad ayaa xukuntay oo tiri judge federaal ah oo US District Court Circuit 9 ah ayaa xukumay in qaxootiga laga hor leexdo especially wuxuu dhahay judge-kaas
qaxootiga fara badan oo waxaa jira wax alaala waxay hanti haysteen iska soo iibiyey guryihii ay deganaayeen liiskii iyo wixii dhan iska soo tirtiray oo gurigii ka soo guuray waxa kale oo uu sheegay in dadkaas wax boorso ku jira ma ogiye wax kale aysan haysanba so wax boorso ku jira kaliya in ay wataan oo alaabtoodii iyo waxoodii iyo hantidoodii iyo waxoodii dhan ba iska soo gadeen caafimaadka la mariyey background check iyo wixii dhan la mariyey marka bixitaan kaliya ay sugaayeen markay diyaaradda soo kori lahaayeen baa Trump imaaday uu ka joojiyey waa tii warqadda executive orderka uu saxiixay oo digreetada madaxweyne digreetadii markii uu saxiixayna waxaa dhacday in dadkaas ay stranded noqdaan kuwa hataa wadankooda aan joogin oo wadamo kale la geeyey oo wadankooda nabadgelyo ahaan loogala cararay sida dadka jooga ka soo jeeda Afghanistan oo kale dadkaas waa laga raray xaafadahoodii dalkoodii baa laga raray waxaa la geeyey wadanka Qatar hoteelay degan yihiin guryaha hataa kuma haystaan meesha the minute oo la soo qaadi lahaa dadka buu ka hor istaagay madaxweyne Trump haddaba markii uu digreetada saxiixay in qaxootiga aysan soo geli karin dalkan Mareykanka waxaa dhacday in maalmo kadibba adiga judge Seattle Washington jooga oo federaal ah oo US District Court ka jooga baa wuxuu dhahay waxa kan wax shaqeynayo ma aha aqlina ma aha buu yiri waa in shaqo laga qabtaa Mr Trump iyo kooxdiisa so wuxuu sameeyay amar buu soo rogay nationwide injunction wax la yiraahdo oo Mareykanka dhan ka fargareynayo sharcigooda ilaa waa nin US District Court haduu joogo sharciga ay soo rogaan oo judge-kaas uu soo rogo wuxuu ka fargareynayaa Mareykanka oo dhan buu from dacal to dacal buu qabsanayaa so nationwide injunction buu soo rogay amar ah in blogga uu ka qaado qaxootiga la keenayo dalkan Mareykanka amarkii sida ay cad hadeer markaan meel badan soo akhriyay waxa ay cadaatay in amarkii aysan u hoggaansamin dawladda federaalka ee Mareykanka inkastoo dawladda way kala tahay oo waa saddex power oo is balance gareynayo checks and balances bay sameeyaan waa judicialki waa executiveki iyo legislativeki oo ah congresska so saddexdaas maadaama ay maaragtay lagu talagalay inay isbalance gareeyaan judge-ka awood wuxuu u leeyahay in uu ku qasbo marka waxaan raadinayay maadaama judge uu soo saaray maxkamad jooga federaali ah uu amar soo rogay oo in qaxootiga blogga laga qaado maxaa ku dhacay baan islahaa bahalkii maxaa loo sameyn lahayd dad fara badanna way soo weydiiyeen su'aashaas of course marka su'aashii jawaabteedii waxay noqotay in aan soo ogaaday in dhaqaalihii uu ka goostay marka ay noqotay inay maxkamaddii nafteeda ku noqdaan oo so waxay challenge gareynayeen the suspension of the US refugee resettlement program and the abrupt withholding of millions of dollars malaayiin dollar oo la siin jiray hay-adahan qaxootiga markay imaadaan caawiya oo garab qabta oo de guryaha meelay degaan siiya oo lacagteeda soo dhaweynta siiya oo tigidka ka soo bixiya ilaa qof qaxootiga lacag ma haysta waxna ma wate so dadkaas ayay lacagihii buu ka goostay marka lacagihii ka goostay waxa hadda ay codsanayaan emergency hearing marka maalintii dhaweeytay judge-ka markii uu soo xukumay oo uu dhahay qaxootiga waa inaad ka hor leexataan oo bloggii uu ka qaaday uu saaray Donald Trump waxaa dhacday in ay dawladda federaalka ah ay sheegtay in ay rabto inay appeal qaadato ay diyaar u tahay inay appeal qaadato inay rabto bay sheegtay so appealkii na weli ma aysan qaadan case-kiina weli uma aysan hoggaansamin inkasta oo maadaama judge-ka uu qoray oo uu dhahay waa in laga hor leexdaa qaxootiga ay ku qasban yihiin inay ka hor leexdaan amarkana ay diidi karin appealkana weli ma aysan qaadan laakiin tookadan waxay kaga duwan tahay tookadii hore ee Trump markii uu dhahay Trump lixda wadan oo islaamka ah dalka ma soo gali karaan waxaa dhacday in judge Hawaii joogo uu hadalkiisa ka hor imaaday oo kan oo kale ah oo district court Hawaii ku taalo oo federal ah ay ka hor timi markay ka hor timi maxkamadaas waxaa dhacday in
uu iska daayo appeal ma uusan qaadan laakiin tookadan way ka go'an tahay maadaama ay ka shaqaynayaan programkan Doji la yiraahdo oo ay rabaan inay Doji waxa la yiraahdaa Department of Government Efficiency baa la yiraahdaa marka oo Elon Musk iyo isaga iyo ay rabaan inay lacag trillions of dollars ay save gareeyaan meelihii criticalka ahaa oo loogu baahida badnaa bay lacagihii ka jareen so ha ka jaraane qolyahan maadaama waxay isugu dareen maadaama uu ka goostay fundski warqadii dekreetada ahna uu soo raaciyay so dekreeto marka hore ka qoray oo executive order ah oo uu ku sheegayo in qaxootiga dalkan aysan welcome ka ahayn aan la soo dhaweyneynin taasna waxay affect gareysay 10,600 oo qof oo flight sugayaal ahaa baa laga cancel flightskoodii waxaas dhan isaga ka dambeeyay ha haatee qolyihii marka keeni jirayna lacagihii la gooyay bay ka mid noqdeen oo laga jartay lacagta marka waxay yiraahdeen the court noted maxkamadda waxay sheegtay leeyahay the contract terminations were factual development waa wax loogu talagalay bay yiraahdeen in lacagta laga jarto hay'adahan in ay waxay cadeynaysaa bay yiraahdeen in aysan ahayn qaxootiga joojinta uu joojiyo Trump wax temporary ah ilaa waxay sheegayeen marka hore in programyada dowladda federaalka ah ay joojinayaan sabab la xiriirta inay rabaan lacag inay save gareeyaan kow iyo tan labaadna waxay sheegeen in ay rabaan in ay 90 days 90 maalin ay hold galiyaan wax kasto dadka meel kasto lacag ay ku baxaysayna lacagihii ka jaraan si ay lacag u save gareeyaan bay sheegeen laakiin hadda waxay u muuqataa buu yiri lacagtan dadka laga goostay hay'adihii qaxootiga keenayay iyo qaxootigii oo la bloogay waxa ii muuqato dhahay judge-ka in ay tahay sheekadan sheeko oo 90 days ama 90 casho 3 bilood ka badan last garaynayso inay noqonayso baa ii muuqatay buu yiri so marka waxay sheegayaan waxay dhaheen waa unlawful waaye the suspension of the refugee program in refugee programka madaxweynaha uu suspend gareeyo oo uu joojiyo waaba sharci darro buu ku doodayaa judge-kan as well as the existential threat facing refugee serving agencies qaxooti hay'adihii qaxootigana oo caawinayay oo garab taagnaa oo serve gareynayna waxa halka ka cadaatay bay yiraahdeen in ayagina ay tahay lacagta in laga goosto arrin critical ah so shaqaale far badan bay naftooda ay ceyriyeen dadkii hay'adihii oo qaxootiyada keenayay oo resettlementiga u sameynayay CWS iyo International Refugee Assistance Project iyo qoliyaas oo dhanba uu ka tuuray meeshii marka orderkan wuxuu sheegayaa bay yiraahdeen so the government seeks to shut down the door on refugees albaabka inay waxay rabtaa ay u xirto qaxooti dhanba dalkan Mareykanka uusan soo gelin in ay rabto bay sheegeen and permanently dismantle this bipartisan beacon sharcigan 1980 waxaa baasiyay sharciga qaxooti keenista waxaa baasiyay 1980gii Congress-ka dalkan Mareykanka ayaa baasiyay so waxay sheegayaan in Congress-ka hadii uu baasiyay 1980gii ilaa waqtigaas ilaa hadeer waxay sheegeen in dhowr iyo 20 milyan oo qof oo qaxooti ah ay ku soo galeen sharcigan awgiis oo ah qaxootiga Mareykanka in resettlement loo sameeyo lagu soo dhaweeyo laakiin hadda ka hortagan uu ka hor imaaday madaxweynaha waxay sheegeen inuu ku gooni ay tahay in uusan sharciyan Congress-ka uusan soo marinin sidii laga rabay uusan u soo marin and I'm sure hadii labada party dalkan hadda xukuma sida maartay Republicanka iyo Dimuqraadiga jamhuuriga iyo maxaan ku yiraahdaa dimuqraadiyiintaba way isku raacsan yihiin in qaxootiga dalkan la keeno oo dib u dejinta loo sameeyo dad far badan ayaana ka faa'iidayo sida ay sheegeen so waxa actionkan waxay ku sheegeen in uu yahay not only in uu san ahayn in sharci darro uu yahay waa sharci waxay yiraahdeen ay cadaawad ku jirto waxaana loogu talagalay bay yiraahdeen in awoodda Congress-ka lagu weeqo iyo tan judiciary-ga marka waxaa moodaa in ay madaxa isu gelinayaan qolyahan hadda lawsuit-ka wada oo de madaxweynaha waxaan ka rabaa
kasoo horjeeda oo maxkamadda la aaday waxay rabaan inay madaxa isu geliyaan madaxweynaha iyo congreskii baasiyey iyo qolyahan judicialka oo de maxkamadaha waxa la awooda madaxweynaha isaga maadaama executive-kii uu haysto waxaa la awooda judicialka oo maxkamadaha ah oo maaragtay maxkamadaha federaalka ah iyo waxaa la awooda congresska so congresska sharcigan baasiyey 1980kii ilaa hadda dhib kama jirin ilaa maalinkii la dhaariyey Mr Trump oo uu qaxootiga dhanba scrap gareeyay dad badan boo sharcigan dhibaato u geystay marka waxay ku sheegeen actionka madaxweynaha uu qaatay iyo maaragtay iyo xukuumaddiisaba iraahdee waxa not only inay yihiin unlawful sharci darre ay tahay oo de congresskii la soo marinin oo maxkamadihii aan la soo marinin but also inay tahay cruel sharci cadaawad ay ku jirto in ay tahay so iyaga naftooda waxay ka faa'iideysanayaan madaxa inay isu geliyaan su-aashii ahayd marka haddii judgeka 28kii bishii lasoo dhaafay uu baasiyey judge uu xukumay in qaxootiga la keeni karo dalkan oo qaxootiga fasax ay yihiin maxaa dadka loo keeni la'yahay jawaabteedii waa sidaan hadda idin sheegay jawaabteedu waxa weeye lacagtii dadka lagu keeni lahaa oo tigidhada loogu soo jari lahaa oo markay inta imaadaan guryaha loogu kireen lahaa oo qolyihii qaxootiyada soo dhaweyn jiray resettlementiga dibadejinta u samayn jiray oo dhan buu wixii dhan ka goostay madaxweynaha ayagii baana haddana maxkamaddii ku laabtay weliba sidaan idin sheegay markii judgeka uu soo saaray oo uu dhahay sharci darro ayaad ku socotaan xaqna ma aha sharcina ma aha in aad dadkan qaxootiga ah oo wax alaale waxay haysteen iska iibiyey oo wax boorso ku jira ma ogyahay waxyaabihii hantidooda ahaa waxba aan ka haysanin oo kusoo talagalay maanta inay beri damba maraykanka ka qadeeyaan in January 20th hal maalin madaxweynaha intuu warqad saxiixo ayaga dhanba meesha maaragtay looga gooyo xaq ma aha bay leeyihiin marka arrimaha immigrationka intaas ayaan rabay inaan maanta idinka dabageeyo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu